ما قرنا أيوه وحي كل عضي تدور ساعة وهبين نمو يا أنيقي يا عرور تايدي أنت كان أنا واعي رمت يا عرفنا رجالي سراكير ولا تايوان ولا هذا الله وحال يابله سراكيش هنا الله وحان ربع عيدنك قلب كسله أنا هلكن باقو وجهديو نبي عليه الصلاة والسلام وعير إن لكل قوم لهم كلاب فلا تكونوا كلاب الأصحاب وعير قوم بولي بوحي إليهن أي ورقام كاغا أي دي سهن قولي بور النبي عليه الصلاة والسلام أيقو يا قردر ما يقانوه هدي الله يرهض ياسقبو وكور ديا أنا قلنا له شيء ده مو أملينين أنا صومالي أو صومالي كل شيء أنا فلسطين نقناي أو أنت أنت قاتل قري أنت هاي دول كيجي أنت هاي مو أملينين واحد بعطاه ملهن واحد كستوى على الصومري إلا هذا الدولة دي شرفت لو حنقعد صنايع تكون بنتي جي واكن دول كيجي إن يسوع علس أنا إسكاله هدان وايو فلسطين بر هل قرنية دجالة موسى هل كقرنية دجالة منا سديد بلاد أيام مقدسة جوجا دولكاس دود دي سئي هذا الكيس أيام قطعنا ميل كستان لا تجي دق ما تجي والليجا أقولاي واي وحن تجي محكمة والليجا قبوا واي حير لالين تورقت وحصاب بحيث اللي هي شق جوجين والد ديدي مركب محكمة قبل كمالين تقدم بيسوي حليري اسكبح مدحوينها ورقة تعكس وقعدته دولكاga adiga aan leedahay dokumentigaada waa ku jeednaa wax laga qaadan karo ma jiro original ah heysata anaga kaaga kicinayna dadka laakiin bax warqad ka soo qaada madaxweynaha dawladda Xasan Sheekh Maxamuud oo diyaarsa badan aan dhiibtay qof ii geeyso waa waaye meel aan ka maro waa waaye hotel ku shir meel kasta ku shir waa waaye idaacadahan ka hadlay Facebook aan ka hadlay wax ii suurtoobay iyo wax ii socdo midna ma jirto dhulkayga weligay ma iibsanin weligay qof ma siinin دوكومنتيجي أوريجينال كواكن دولة شرفت له أنا قدسي إجتهاي because أنا دولة دام كل شيء حتى دولة هاي دولة أنا أباهنا هاي وحن ما أنت عباد كي وأسود جديد إن ضد كنا نبن وحوي دولة الرجل صومري وحن باقي نقول أدرينا دولة هذا جرتا دولة صوصعته ضد كأن اللودين وها دليلوا وماشي مسلم قالب يوجاين وقبض السكول كأدي قولي جودي قدام أيوة ما ده يتاجني مركز ولا جوجي وهاي السمايزاي وهلا السمايي شن ساعة الصباح نما سكول كي لقوم مغيهاي سوق لقوم مغيهاي ودتك أي واحد حافظي جوجا لا أرجع بعرف لقلي أنا جوها ما أنت قيام اللي ويدينا أو عندها جساري دور يطبن نفو أريا أو صندقات كجرت وعرف أنت لقلي عرف تأفكد أريا وكلا لا أنا أركي reer horseed haddaan nahay waxaan noo dheeriyay 6 qof 6 rag ah iyo gabar ayaa nooga dhimatay weerarkii iyadoo galabtoo kalena lala ballamay degmada hodan gudoomiyaha iyo niman dhulkan doonayna dhahaya ay nala ballameen berri inaan la kulanno mar labaadna loo ballamiyay ayaa waxaana soo weeraray 10 saac oo habeenimo ciidan meel uu ka yimid aanan aqoon isla markaasna ka tira badan dadkii deegaanka ahaaba waxaana lagu bilaabay 10 saac oo habeenimo xabad ما إن تكون صلاة صباح حضنا إرادة إن دمبابان كبقيا لكن سفي عن أمان أن تكن وحي أن تكن من نقان وحامل شاس كد عي حسوق وحنا لقد اللي قفوض لح رجأة يجبر صدن يكو قفنا وانا لقد دواعي وحن آدم كقعد سنة يا ملح دول مريال صحافة يسكو حريال با إن لو دعي يخرط الدكاس قريه اللي سو وري أو اللي قد لي لونا تعسيه إنا لله وإنا إليه راجعون أهل كودي قرابة ذي نسمر الله إنه كسيو شو هدي هاي أنا قريه ذي اللي قد لي الجنة دينا اللي جيو أنت سنة دي قد عيسى الوعد كل سنة يا waxaan faraynaa digniinta aad dawladda kaliya u direydaan inaynaan dirin ee aad ganacsatada u dirtaan oo aad tiraahdaan lacagtiina ha iska gelinina haddaad gelidaan hadhow ha noo imaanina hadday idin yimaadaanna aynaan waxba ka aqbalin sidaa ogtihiin waxaa la baxshay xabsigii dhexe oo meeshii kaliya ahayd ayaa hadda la barakiciyey ma ahan in dadweynaha kaliya la barakicinayo laakiin waa isirsifayn iyo in aan ummadda Soomaaliyeed aan wax hantii u harin ninka soo socda oo imaanayana uusan wax hantiyo qaran leeyahay uusan u imaan waxaan dheernahay dadka meesha jooga qaybo kamid ah xitaa madaxweynaha inay is arkeen annaga 9 codsiyaan u diranay waana qaabili diiday halkii masaajid oo aan anagu gacmaheena ku dhisanana amar uu ku soo baxshay in la baabi'iyo
waxaan haynaa dukumentiga aan ka diyaarinay oo aan kala hadlayno oon leenahay annaga waana barakiciday laakiin masaajidka ilaahay badbaadi meelaha dhan oo la barakacshana masaajidiyaa loogu hormaray hadda wax dhimani ma jiraan ummadda waxaan rabnaa inaad ugu baaqdaan badbaado qaran inaad ugu baaqdaan rabnaa dadka shacabkaahina waxaan ka rabnaa in ay u istaagaan inay naftooda iyo maalkooda iyo dalkooda iyo diintooda ay badbaadsadaan wax haray ma jiraan yaan la fadhin aniga dhulkayga wuxuu ku yaallaa Taleex waana anaana u taagan cid dhisi karta iyo cid taaba kartaana ma jirto wallaahi inaan inta guri ka dhisto uusan ku gamayn anoo nool dadka dhanna waa ila mid waxaan rajaynayaa insha allahu dadkii maalin dhaweeta la laayay oo xaafadda horseed lagu laayay dadkoodii ilmo ugu yaraan markay ugu yaraadaan 7 qof oo agoon ah oo wax lagu laayay bilaa sabab ah meesha jooga waxa saas yeelaya waa dad ka dhashay oo ma ahan dad meel kale uga yimid waa ninka ugu dhaqaalaha badan soo qaada dhulkii markaas dadka ku dilaa midda dawladdan ka hor waligiin ma arag dawlad dadkeedii dhae oo habeenkii makiinad ganaweyn intuu geysa alaabta ilmaha isku haaqee dawladda xasan shiiqa ka aragnay shacaba waxaan idinka rabaa intiina maqan iyo intiina joogta ilaahay xasan shiiq meel dal inuu ka aamin dhaha ilaahay ha naga qabta dhaha ilaahay ha naga qabta dhaha kuwa maqanna sidoo kale meel kastoy joogaan faataxada how akhriyaano masaajidada aad u maqayli kartiin oo idin ogyahay kuwiyaa idin xiraahe oo soo diree faataxada hoos ka akhriya xasan sheekh wuxuu yidhi ka guura dhulka 250 boosaan 500 reer siinayaa dib aan u dejinayaa hal sano iyo 8 bilood bay maraysaa codsiganagii waxba kama fulin idaacaddii aan ka hadalnay waxba kama fulin waxaa noo dheera 5 maalmood gudahood 3 qof oo shacabka reer dibdamisa oo banaanbaxa cabasho soo jeedsaday ayaa la xiray qaar waa la soo daayay qaarna weli xabsiga wada jiray ku jiraan ayagoo jir dilan oo dhaguhu go'an yihiin yaanba madaxweynuhu dhulna siine waaba na dumiyey inuu xorriyaddanada noo nabadgeliyo shacabkaas nabadgeliyo masaakiinta qorraxdooda ha iska yaalyaallaane waa suurogeli weydi askar baa nala ka adeejiyey rag saraakiil oo sarsaroo gobolka iyo amniga iyo maamulka haysta waxaa la iigu hanjabay aniga hadlahayo haddaad idaacadda jooji weysa aad ka hadlaysa waa lagu xirayaa waa ballansanahay way iska sugayaa xarig laga naxa maahana waa an lagu farxay ahayd waxaa naxdinta keenaya ayadiyaa mucaarad keentay waxaan rabnaa warshada biraha hadda dadaa ku dhintay dhibaato ka timid dadaa ku dhintay nimaa xiran oo wuxuu xiran yahay muddo 30 maalmood wax ku dhadhow xiran yahay si afduub camal uu xiran yahay sababtu waxa weeye gurgiisa laga kaxaystay nin nabadoon uu ahay maxaad u hadashaa lagu watay wali waa xiran yahay dhulkii aan lahayn oo sharciga ahaa oo gurigan maanta aan hadda fadhino waa dhul dukumeentari dhul noocaasa ayaa la yiri waa dhul dawladeed ee nalaga dhacaya qareen baan qabsanay maxkamadan tagnay garsoorihii baa yiri waxaan tagayaa ii sheeg nimanka ganacsatada dhulka qaadanayay way yimaadeen lawyer buu la yimi dhulkii baan tagayaa buu yiri garsoorihii maxkamadda niman jirri ah oo dirays dawladeed wata oo meelay ka socdaan aan la aqoon ayaa xabad dabada u qabtay oo xaqiiqa oo ilaahay og yahay dawladda Soomaaliya oo anagu aan dhisannay oo ma garanaysaa ay noo geysatay intaasoo dhibaato waxaan codsanaynaa beesha caalamka ummadda Soomaaliyeed inaan bannaankaas daadsannahay oo duurkaas aan iska jiifjiifno ilmihii naagihii carruurtii odayaashii dadkii dhammaa reer tarabuun dhimasho iyo dhaawac iyo tacaddi iyo khasaare maadiyan iyo bashariyan ah ku dhacay waxaan ka codsanaynaa tacsidaasna inaan nala qaybsataan dadka inaga dhintana loo duceeyo dadka dhaawacana loo duceeyo intaasna waa in ka codsanaynaa waxaan aad iyo aad mar labaad iyo mar saddexaad aan maaragtay u bogaadinayaa oo u mahad celinaynaa oo aan ku faraxsanahay madaxdeena maanta na hor fadhida warka iyaga waa dhiibanaynaa haddaan idaa ag dhignana adinka ayaan ka rabnaa inay meel alla meeshii maaragtay ku munaasaba gaarsiisaan hadday maxkamad caalamiya tahay
hadday mid loo kala tahay hadday magaystaa waa sidaa aan inkaga codsanayna in arrinta loo istaago